الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي سبحانه وتعالى ومهد سكاله runtii mawduuca suu sheekh xasan u iclaamiyey waxaan rabnaa inaanu ka hadalno isla tilmaamno caruurtayada aanu wadamadan keennay qurbaha ama ha lagu dhalo ama ha la keeno runtii waxbay bartaan iskuullay dhigtaan wax badanna waa kasoo faa'iidaan maxaa ay inaga mudan yihiin يعني سؤاشاسي إنان تربية هان وحي إننا مذنيين هاي تهي يعني والد والبين بسويديو ونقنا هاي إن نصوص قصة أرورتي مسؤولية التربية دا مسؤولية والد كسارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلهي سبحانه وتعالى مقوت المامي يعني وحوي إذنك أهل كينا ehelkuna waxaa ka mid ah waxa weeye waa reerka adigu aad mas'uulka ka tahay ay ugu horeeyaan waxa weeye caruurta sidoo kale xadiidkii Cabdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi waxaa ka mid ahaa qofka ninku in runtii raaci yahay lana weydiin doono mas'uuliyadii إلهي سبحانه وتعالى وصارته وهي جرجي سجى جرجنا وحوه الري وحويه وعروته وعن رحمه الله مسألة دوت إنا رنتي مسألة المامنة إنه كهذا الله إن مسألة دوه الرئيس وليه رنتي مسألة مهمة جدا يعني والد والبنات إنه واحد بدن كهو هذا هي مهم تهاي تاسوا ما هي عروته يدو كسر برتان سكول هذا إنه جينه يعني سؤال شامل السويدية يعني وحي كسر برتان عروته يدو ما هي أي تهاي إن عروته يدو أفرجرها والله باللابا سيستم كحمر الشذا والضمضان إن ريسبشن باللابا يروان إلى كوليج وكدكتو سديدي تبنجرو كجارو يعني معنى يدو حوي إن مدة قياستي جاريسو أفري طبعا سنضات يعني أفرجر إلى سديدي تبنجر أيوة مؤسسة تعليمية سوح والبوك لها أي واجب نقطة هاي والد كأنه سكول علمها علميسا سكول كجيو هو كسر برتا مركان كسر تغنو ما دوين ك بدن على ديجو أن وجنا هاي أو والد والبن ويقانو إنجليزي ماثي ساينسي أو هيستوري جغرافي ما دوين كلامك وما دوين كعلم جا ودكتور إن أنت وحي كسر محول ما كسر برتا سكولك يعني وحيابها الرواين لبرو أما يلمها محوها إن سكول كسو كسو نكتمحيين يعني إن نسوي دينه والنوبنا هي وحوي إن منهج مركانو كهذا لنا ما وحبرشوا والبا ما منهج والبا وحو وصلكوا هي فلسفة وكدوليو إن فلسفة داسين وحي حمبار سنتا وحوي قيم لدوني المهاسين وكوكرو أما وياشو إن ملايين تاسي لغو بحيني يسكولك إنتاسو كوادر لو توبريو إني عرور تاسي إن وحبران لغا بلابو دا فرجر شنجر لغا بلابو إلا وسيديدي طبان كغاريو runtii ujeedadu ugu weyn waxa weeye maaha maadadan cilmiga waa qayb kamida way waxa ilmaha la barayo maadooyinkan cilmiga maadooyinkaasi cilmiga waa maadooyinka la doonayo hadhow inuu profession ku noqdo oo ku shaqeysto cilmi ahaan wixii uu soo bartay oo xirfad uu ku shaqeysanaya laakiin waxa feer socoto oo ku sidkan waxa weeye qiyam la doonayo ilmahan inuu xambaaro qiyam la doonayo ilmahan inuu ku sifoobo oo uu noqdo يعني وحيابها لجلينيو أما لبريو وحلا ربا هدو إن outcome كذا ما وح كسو بحيا إنه نقضه قف نوعية منهج ولباء دولة دجينيسو أما مؤسسة تعليمية دجينيسو حيسلكو كويسة وحوي قرت علم النوعية وندونينا إن نصوصار كسوكو ما دون كان علم لبريو ما دون كان علم لبريو وحوي منهج كاسي فلسفة وكل سنة هاي وقيب كميدا أو لقيا وإني بقول كيف كنت جارين
laakiin boqolkiiba konton iyo wixii ka badanba waxa weeye waxay xambaarsan yihiin qiyamkaasi la doonaya ilmaha in la barto in la baro laguna barbaariyo kuna weynaado si uu hadhow u noqdo waddankaasi uu joogo ama ciddaasi barbaarsatay mu'asasadaas tacliimiga ah nooca muwaadinka ay rabto ama qofka bani aadamka ay intaasoo malaayiin ku bixisay nooca la rabo inuu noqdo markii uu ka soo baxo su-aasha way su-aasha ay mudan tahay waalid walba inuu isweydiiyo maaha inaan yani waxa weeye dul heehaabno maadooyinkan cilmiga ah ee badanaabo aad moodo in aan culays ka saarayna inaan wax ka ogaano maxaa loo soo dhigay oo mararka qaarkoodna ay nagu kaliftay inaan tuushin geyno oo iskuulku inuu ku filaan waayo in markaa tuushin la geeyo tuushinkaasina uu ka caawino wuxuu ka caawinayana waa hal lagu daray laba weeye yani wax kaloo ugu kordhinaya ma jiro idan su-aasha waxaan rabnaa inaan soo koobno waa mas'ale aada u ballaaran weeye daraaso dheer u baahan runtii leanno manhajkaasi marka la dejinayo haddii uu noqon lahaa marxaladda hore ee ah marxaladda ilmaha primary-ga uu marayo da-da yar uu yahay iyo haddii uu noqon lahaa marxaladda da-da dhexe ee ah secondaryada markuu ilmaha uu dhiganaya iyo waxa weeye horta marka hore waxaa la xadidaa ahdaafta laga leeyahay manhajkan ahdaaftaasina waxay salka ku haysaa waxa weeye nooca qiyamka la doonaya ilmahan in uu xambaaro waxaan isla taataabanaynaa oo dulmar aanu ku samaynaynaa keliya waxa weeye in aanu fikrad guud ka qaadano ay mawduucan waxa weeye mawduuc daraaso dheer u baahan mawduuc in runtii la akhriyo kutub fara badan la akhriyo mawduuc u baahan in waxyaabo fara badan ama meelo badan wax laga ogaado u baahan weeye qof iyo laba iyo yani keliya ayaan ku filaanayn laakiin ay u baahan tahay waxa weeye majmuucaad runtii daraaso ku sameeyo manaahijta kala duwan waxa ay salka ku hayaan iyo waxa ay diiradda saarayaan laakiin nin yaro waxaan rabnaa inaanu ka soo qaadano albaafur la yiraahdo yani qofkii waalidkiisi uu ogaado haddii aan laba qayb u qaybino marxaladaha ama da-da ilmaha iskuullada marka ay dhigtaan wax baranayaan waa laba marxaladood marxaladda asaasiga ah waa primary-ga wey marxaladda asaasiga ah oo ilmuhu ilaa yarsigiisa uu ka dhiganayo ee ka gaarayo iyo marxaladda dhexe ee marxaladda waxa weeye dugsiga sare ama secondary-ga ilmaha uu dhiganayo labadaas waxaanu soo qaadanaynaa manhajka waxbarashada maadooyinka loo dhigaya ama systemka wax loogu dhigo ee macalinka u dhiga ilmahaasi uu u traingaraysan yahay maxay tahay waxa la rabo in ilmahani lagu barbaariyo yani ereygaasaan u isticmaalaynaa lagu barbaariyo laanno waxbarashada iyo barbaarintu waa laba runtii mas'aladood oo isfeer socdo weeye midna waa tacliim midna waa tarbiyo weeye oo midna waa mid khaasa oo tacliimtu waa ilmaha macluumaad aad siinayso oo aad waxbarayso maadadan waxa ay tahay tarbiyaddana waxa weeye waa qiyam iyo mabaadi aad rabto ilmahan in uu ku tarbiyadoobo ama shakhsiyaddiisii ay yeelato adoo u marinayo waxa weeye waxbarashadii u marinayo taa weeye runtii tarbiyadda marka qiyamka ilmahan la doonayo inuu ku tarbiyadoobo ama uu yeesho markuu marxaladda marayo maxay tahay mid walba saddex qaybood baan ka soo qaadanaynaa yani marxaladahaasi marxaladda hore ilmaha saddex shay baa asaasi oo la baraa iskuullada lagu baraa qaabka ilmaha la doonayo inuu u dhaqmo ama uu wax u barto waa midda hore waxa la yidhaha istiqlaaliyada ilmahan in la baro inuu ilmo gooni yahay ilmo madax bannaan ra'yigiisa leh go-aankiisa leh soconaya isaga taa weeye runtii waxyaabaha inta badan aad moodo iskuullada waa isagoo receptionka baa looga bilaabayaa ilaa inta uu dugsiga hoose ama dugsiga marxaladda asaasiga uu maraya waxa weeye waxaa la barayaa masaladaas istiqlaaliyada hebel baa tahay adiga go-aankaaga adaa leh waxa aad samaynaysaan adaa ka mas-uula yani waxyaabahaas runtii waa mabaadi'da iskuulka inta badan lagu baro waxaan u barbar dhigaynaa waxa weeye dhaqanka guriga yani waxaan rabnaa labada shay si aan u ogaan annaga ka waalid ahaan bal sidee aanu ola falgallaa sistemka waxbarashada ilmahan waxa iskuulka lagu soo baraa ama habka wax loogu soo dhigay iskuulka ama sida iskuulka loogula dhaqmaa ilmaha iyo annaga waalid ahaan guriga sidaanu
wala dhaqanno si yani aanu isugu barbar dhigno labadaasi mas'aladood guriga waxaad moodaa in nooc tabiiciye ilmaha waliba marka ay yar yihiin in wax walba loo minguuriyo waalidku u sheego buugtiisa la xusuusiyo goortuu jiifanayo goortuu wax baranayo goortuu wax cunayo in mar walba la xusuusiyo waalidku ku xirnaado. That means ilmaha guriga marka uu jooga waxa weeye waa ilmo taabica waalidkii raacsan waalidkii wax walba ka sugayo. qaarkoodna waalidiinta aad arkayso waxa weeye in nooca cunada uu cunayo xataa ilmihii inay iyagu u dooraan oo ilmihii uu sugo inuusan lahaynba ikhtiyaar inuu waalidkii weydiiyo maxaan cunaa uu yiraahdo isagoo uusan lahayn go'aan ah waxaan jeclahay waxaan ma jecli. baynamaa iskuulka loogu soo dhigayo systemka waxbarashada iskuulka ama habdhaqanka iskuulka macallimiinta iyo ardayda la kalaaska ah ay kula dhaqmayaan ay tahay inuu istiqlaaliye yeesho inuu isagu go'aan leeyahay waxa uu samaynayo fikirkiisii iyo wax sidoo wax u cabirayo nooca ciyaartu uu ciyaarayo buugga isagu uu akhrisanayo nooca uu yahay waxa la barayaa waxa weeye in isagu uu soo go'aankiisii uu yeesho. hadii qiimo weeye ilmaha iskuulada lagu soo barayo. annagana yani dhinaca kale waxa weeye waa yar yahay waxa laga yaabaa hooyadii inay u go'aamiso wax walba oo dharkiisii iyada u diyaariso muxuu ahaa buugtiisii iyadu markii uu wax ku akhristo ama xataa toyskiisa markuu ku ciyaaro in iyadu marka ay iyadu u hagaajiso ama aabihii ama hooyadii mid ay noqdaba yani ilmihii in uu dulsaar waalidkii marka ku yahay oo isagu uusan lahayn istiqlaaliye isagu wixiisii ku samaysto. taa waa qiimaha u horeeyo ee badanaa iskuulada lagu baro cagsigeedana aad moodo inaan annaga guriga kula dhaqanno. tan labaad waxa la baraa waxa la yiraahdo milkiyada lahaanshaha. waxa ilmaha marka iskuulka uu tago ama la geeyo la barayaa saddex shay. waxaan adaa leh idin la'aan lagama qaadan karo waxaan adigu ma lihid qof kale iska leh idin la'aan ma qaadan kartid waxaana uu idinka dhaxeeya oo waa wax iskuulka iska leh ardayda dhan uu ka wada dhaxeeya. waxa weeye markii aad fursad u hesho ama uu bannaan yahay kaliya ku ciyaari kartaa ama aad isticmaali kartaa. haddii qof kale uu isticmaalayo waa in aad sugto ilaa uu ka dhamaysto marka kadib aad xaq u yeelanaysaa. saddexda mas'aladood baa iskuulka lagu baraa waana mas'alada la yiraahdo lahaanshaha yani milkiyada wuxuu soo leeyahay. sadarteed waxaad arkaysaa waxa weeye waxaan anaa leh haddii laga qaataa idin la'aan laga qaataa waxa weeye waxa uu i'tiqaadayaa in xuquuqdiisii lagu soo xadgudbay oo markaa yeeli mayo. bilcagsi guriga waxaanu arkaynaa waxa weeye wax xaq tamalluk la yiraahdo ma jiro. ilmaha yadii waxa weeye waxbaa isagii loo soo gadaya walaalkii ka weyn ama ka yar markuu isticmaalo haddii uu ka xanaaqo waalidku waxa laga yaabaa in ilmaha lagu canaanto leeyahay walaalka ka weyn weyda hadduu ku ciyaaro ka qaato hada ima weydiisan buu leeyahay. qaamuuska guriga kuma jirto wax la yiraahdo ima weydiisan yani idankii isaguna waxa uu bartay qiyamka ah waxaan aniga leeyahay without permission lama qaadan karo yani idin la'aan lama qaadan karo waana xaq uu leeyahay. gurigiina bilcaks waxa yaalo waxa weeye ama lahaw adiga ha lagu soo gado ama cid kale ha lahaatee waa waxa weeye dadkoo dhan buu ka dhaxeeya. taana waxa weeye waa mas'alada runtii qiyamka ilmaha markay yar yihiin iskuulada lagu baro oo aan annagu runtii cagsigeeda inta badan ku dhaqanno. qodobka saddexaad waxa la yiraahdo waxa weeye qofka inuu limit leeyahay xuduud inuu leeyahay discipline-ka la barayo waxaan ma samayn kartid waxaan waa lagu ogolyahay waxaana laguma ogolo waxyaabaha iskuulka lagu soo baro weey. ilmaha markay yar yihiin way iltizaamaad buu iskuulku leeyahay. iltizaamaadkaasina inta badan waxa ay keenaan waxa weeye in ilmihii uu iltizaamo way dhowr boqol oo arday baa dhigato iskuulkaasi ilaa dhowr iyo soddon macallin baa laga yaabaa in ay joogaan. waxa kala hagayo ilmahaasi waxaad arkaysaa waxa weeye xuduudda loo sameeyay waanaad arkaysaa waxa weeye markay trip u baxayaan baad ka arkaysaa discipline baa loo dejinayaa. discipline-kaas xuduud weeye waa inuu laazimo laba ay u soconayaan gacmaha is haystaan macallinka ka horeeyo eeganaya ka gudbimayo mana ka hor talaabayo mana ka dambaynayo. idan waxyaabaha iltizaamka xuduudiga ah ee discipline iskuulada loogu dejiyay waa waxyaabaha ilmaha runtii iskuulka inta ay joogaan lagu baro. bilcagsi gurigii waxaanu arkaynaa waxa weeye xuduud ma leh yani fawda yani
goorta la seexanayo xuduud ma leh, goorta wax la akhrisanayo xuduud ma leh, goorta wax la cunayo xuduud ma leh, goorta uu wixiisa hagaajisanayo xuduud ma leh. marbo isaga iyo waalidkii ama waalidkii xilliga uu isagu fursad u helo, waayo waxay ku xiran tahay waxa weeye tii hore aanu soo sheegno oo tabciyada ahayd oo ah ilaa waalidku uu sheego ilmihii waxaa laga yaabaa inuusan miiska fadhiisan homework ka shaqayn, ilaa waalidku uu sheego ilmihii inuusan wax cunin, ilaa waalidku uu sheego ilmihii in goortii loogu talagalay inuu seexan. taana waxaad ka garanaysaa waxa weeye iska horimaadka ama isjiirka badanaa ka yimaada waxyaabaha iskuulka ilmaha uu ka soo barto waa nidaamka iskuulka u dejiyey iyo tan guriga taallo runtii in ay cagsi isu tahay. taa yacni intaasaan ka soo qaadanayna waxa weeye in aanu ku baraarugsanaano annaga ka waalid ahaan war ilmaha iyaga maadooyinkan lasoo baraya keliya maahee waxaa iskuulka lagu soo baraa ee kale, yacni qiyamka iskuulka uu xambaarsan yahay ee lagu soo barayo weliba marka ay yar yihiin inaan aada ula soconno si ayn u iman hadhow in wixii fiicanay aad ka faa'iidaysan karto oo ilmihii looga faa'iideyn karane inaad adiga ula socoto, wixii kalene aad ka digtoonaato waa aad bay muhiim u tahay. marxaladda labaad markaan ugu soo gudubno waxa weeye marxaladda labaad markaan ugu soo gudubno waa marxaladda dugsiga sare. runtii marxaladdan aad bay uga duwan tahay qiyamka ilmaha la barayo marka ay dugsiga sare ay dhigtaan. waa dad waaweyn wey, teenage bay markan soo gaareen. waxa culayska la saarayana waxa weeye xagga fikirka iyo muxuu ahaa isticmaalka caqliga siday u isticmaali lahaayeen. ayana 3 shay baanu ka soo qaadanaynaa oo ah kow in xorriyadda fikirka waxa la yiraahdo in fikirkaaga iyo aragtidaada inaad xor u tahay, waxa aad rabto adiga in aad muxuu ahaa aad rumaysan karto, wixii aad aragtana in aad adigu fikirkaagu yahay xor u tahay. yani cidna inayan ku meerinaynin ama cidna inayan ku dictate garaynaynin waxa aadan adigu rabin. يعني fikirkaaga xor baad u tahay, rabitaankaagana xor baad u tahay. waxyaabaha runtii iskuullada aad loogu baro haddii aanu fiirinana waxa weeye maadooyinka aad culayska u saaro mas'aladan waxaa ka mid waxa maadooyinka luqadaha ah, waliba maadooyinka literature-ka oo English language literature-ka, qisaska loo soo qaadanayo, gabayada loo soo qaadanayo, masraxiyaadka loo soo qaadanayo, kulli waxay wada cabirayaan fikir ah qofku bani aadamka inuu xor u yahay isagu fikirkiisa, inuu isagu xor u yahay rabitaankiisa waxa isagu uu rabo, ayna cidna dictate garaynin. fikirkaasi waa fikirka ilmaha runtii lagu barbaarinayo iskuullada dugsiga sare waliba marka ay soo gaaraan year 7-ka. tan kale labaad waxa weeye nadariyada iyadana waxa aad loo rakiisaa waxa la yiraahdo nadariyada maadiyada ama materialism-ka loo maxaa la yiraahdaa adduunkan maado weeye, adduunkan isaga is abuuray si sudfa ah oo adduunkan ku abuurmay. hadii nadaradii darwinism-ka runtii maadooyinkooda sayniska halkaas sal u ah oo ilmahana inta badan runtii si doonima garanta loo gelinayo loo tusayo. yani maadooyinkan muxuu ahaa especially sayniska aad bay runtii ugu badan tahay nadariyadaasi in la baro, iyadoo markaas halka ku haynayso waxa weeye in ilaahay uusan jirin, in muxuu ahaa quwa dabiici ah in adduunkan si sudfa ay ku abuurtay. waxyaabahan hadda isbedelkan ama tatawurka badanaa dhacayana inuu ku yimi tatawur sudfa ah inuu ku yimi oo muxuu ahaa ayan ahayn arrin qorshaysan ama muxuu ahaa la dejiyey in ayan ahayn. arrintaasina runtii aad baa ilmaha iskuullada loogu dhigaa. tan saddexaad waxa la yiraahdo xurriyatul adyaan, yani diimuhu inay xor yihiin, qofku inuu xor u yahay isaguna muxuu ahaa diintiisii. waana garan karnaa waxa weeye maadada muxuu ahaa RE-ga oo religion education maadada la yiraahdo, diimuhu dhan baa la dhigaa iskuullada. diimahaasoo la dhigo waxay salka ku hayaan falsafada ah waxa weeye diimahaasoo idil waa siman yihiin, diin ka fadli badan ama tana xaq ah tana xaq ma ah ma jirto.
diimaha oo dhan ilmaha waa loo wada dhigayaa waana siman yihiin diimahaasi adigana waxaad xaq u leedahay mid aad doonto in aad runtii rumaysan karto haddii aad doontana diinba ma qaadanaysid xor baad u tahay inaadan diin qaadan oo waxay xiriir la leedahay mas'aladii hore ee ahaa xorriyadda fikirka qofku inuu xor u yahay fikirkiisa iyo ictiqaadkiisa inuu xor u yahay qaabka maadada loo dhigayo ama qaabka maadadaasi ay u dhigan tahayna waa qaab ah waxa weeye maadooyinka diimaha waaweyn oo adduunka oo dhan baa la dhigaa diimahaas waaweyn adduunka oo dhan la dhigaa islaamka waa la dhigaa waxaa la dhigaa jewishka waa la dhigaa waxaa la dhigaa christianki hinduuski buddhismki diimahaas oo idil taasoo salka macnaheedu ilmaha in la fahamsiiyo diimahan wax bani aadamka isagu uu samaystay waa siman yihiin diin ka fadli badan ma jirto adiguna xor baad u tahtay aad ku qanacdad qaadan kartaa haddii aad doontane midna ma qaadan karti waa iska dayn kartaa oo inaad iska daysana waxa weeye waa waddo kuu furan هذه مسألة ما فلسفة سلك كويسة إذا سد هذا مسألة ذود بو وسد هذا مسألة ذود منهج كالتعليمي جا إسكول ذا نو يوكي كلي كهذلمن all the Europe محوها Western countries إذن هو هي فلسفة ده أي وحبرشة وضع النظام كذا وحبرشة وكسر ليسين هي واللي بأرضي ذا مركي الدكسية ذا سريهم وحوي إنه فكر كيس حروي هي إن دون كان إنه محكش مادي هي قوة طبيعية إن الدون كان أبورتي أو سيسود فايد وسجيمي إن دينهم واسميهين حرب ضد تهدينتي أدوم تتقارن كرتا هدي أدوم تنا وكتير كرتا ودين لاوي والنظام كرتا وأنا تنا إنه كأركين هذا هو نمبر كإيثيزم كأما دين لاوياشو إن وضماد يوروب وقصوا بدنيا يعني لبعتن سنة كهر برسنتج كوجوجي نمبر كضدك aan diimaha rumaysanayn iyo hadda marka la soo barbar dhigaa runtii waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn ayaa u dhaxeeya inta runtii waxa weeye waa mas'alada ugu horeysa oo ay tahay annaga ka waalidiin ahaan runtii inaan la socono sidee oo la socon karnaa marka waa mid hore horta in aad manahijtan waxbarashada ee ilmaha loo dhigo inaad daraasayso inaad ogaato inay kaliya ahayn maadooyinka la dhigay maadooyinkan cilmiga oo English science math iyo maadooyinka la mid ah kaliya inayan ahayn inaan culays ka saarin aan ogaano waxa falsafada ka dambaysa ujeedada laga leeyahay maxay tahay waa qodobka labaad qaabka wax loogu dhigo ilmaha inaan ogaano runtii qaabka ilmaha wax loogu dhigaa waxa way ka duwan yihiin qaabka annaga aan wax ku soo dhiganay yani annaga iskuulaan soo dhiganay wadamadayadii farqi weyn baa wuxuu u dhaxeeyaa waxa weeye systemkii aan wax ku soo baranay waagaan iskuulada joognay iyo systemka hadda iskuulada halkan ilmaha loogu dhigo annagu systemkan ku soo baranay waxa ay waxa weeye macalinka isaga center aha inuu macalinku soo sharxo ardayguna mustamic wuxuu ahaa dhageyste macalinka wixii uu macluumaad u siiyay kaliya inuu qaato hadhowna lagu imtixaano laakiin halkan waxa weeye runtii child center muxuu system wax la yiraahdo jiro oo ilmaha isaga wuxuu yahay center 80% waxa weeye ilmaha iyaga shaqaynayo iyaga wax soo diyaarinayo discussion baa la galaya macalinka just waxa weeye inuu ilmahaasi guide gareeyo oo uu toosiyo wixii akhrin lahaayeen iyo meelaha wax ka soo akhrin lahaayeen iyo waxa la barayaa ilmuhu waxa weeye siduu wax u soo akhriyo wixii uu soo akhrinayo inuu analyze gareeyo يعني إنه تحليلي وكفكره وحكلا صور حبهم بعلمه لبريا ما لك الدول نوالو دريا أنت وحبي كسو ديارني أنا مبوها كسو آخرية ما إنترنت كسو آخرية يعني علمه وحلوش قيسيني مسكحهن سي إسجي ونقضه الماء معلومات كإسجي لفهنتي سي لصوبها المعلم كي كلية إن أوصنسين تاو حيابها أنه أنتي أنه كوكل الدول ناي waxyaabaha aan ku kala duwanahay wax kamid ah waxa weeye annagu waxbaan la xifdisiin jiray systemka annagu wax ku baranayno waxa weeye macluumaadka macalinka uu ku siinayo waad xifdinaysaa hadhowna imtixaanka sida loogu imtixaanaya laakiin halkan waxba lama xifdiyo xifdiga waxa weeye waa yani boqolkiiba 5 haduu ka yarayno inta kale ilmaha waxa weeye inuu wax fahmo maadadii uu fahmo isagu marka uu cabiro wixii uu fahmay يعني إن وأيو مسألة هاي إن حرية الفكر وحليرة إن الماء فكر كيس حر وياهي
ra'yigiisana uu xor u yahay waxa weeye xataa aqoontii uu soo akhristay inuu taxliilin karo oo uu fikir ka dhiiban karo. taana waxay kalifaysa how inuu fahmo waxaan la doonaya in uusan buugga waxa ku qoran inuusan xifdin, macallinka inta yar uu sheegayna keliya in runtii uusan xifdinin. waa waxyaabaha runtii aan labadaa dhinac runtii ku kala duwannahay. intaa markaan kasoo gudbo waxaan rabaa waa dul maraya runtii waxaan rabaa inaad idinka raadisaan oo albaabkaasi inuu idiin furmo oad ogaataan bal manaahijta waxbarashada waddankan ilmahan sida wax loogu dhigo inaanan fiirinin ama inaydan fiirinin keliya maadooyinkan loo soo dhigo ama buwaagtan muxuu ahaa loo dhigo oo ah Excelka iyo AQA-ga iyo OCR-ka, saddexda qaybood oo manaahijta buwaagta ay soo diyaariyeen keliya inaadan eegin maadooyinka cilmiga ku qoran, laakiin falsafada ka dambaysa iyo ujeedada ka dambaysa systemka caqliga ilmahan loo koriyo. maadadan cilmiga ah waa maado keliya aqoon ahaan loo barayo, laakiin koriinka maskaxdooda sida loo korinayo, nolosha sida uu u arkayo, sida uu u dhiraandhirinayo nolosha markii ay wax ka hor yimaadaan, fikirkiisa sida uu ilmahan la rabo inuu u cabiro, caqabadaha ka hor yimaada sida uu u waajiho, waxyaabaha la rabo in uu rumaysto oo uu qiyam ka dhigto. intaasiba inaad soo ogaataan systemka sidee iskuullada wax loogu baraa ama macallinka u dhigayo fikirkiisu muxuu uu yahay sida uu u arkayo. taana waxaan ku ogaan doonaa waxa weeye masalada labaad markaanu ka hadalno waxyaabaha waalidka looga baahan yahay. laakiin intaana taa ka hadlin waxa weeye saddex qodob oo yar yar waxaan rabaa inaan hormarsado inaan ogaano. saddexda qodob oo yar yar waxa weeye horta wadamadan aanu nimi carruurtiya weli amr u ah. su-aasha idinka idin weydiiyey weli amriga carruurta sharcan weli amriga waalidka soo maha. annagu waxaanu naqaanaa weli amriga ilmaha waalidka weeye. waayo qofka weli amriga waxa qofka weli mas-uulka ka ah oo beri la weydiin doono, lagula xisaabtami doono. ilmahaasi yani waxa weeye haddii u marin habaabo iyo haddii toosiyo haddii u hagaagsanaadaba ajar iyo xasanaad iyo ciqaab iyo muxuu ahaa naar miduu ku mudan doonaba. laakiin wadamadan aanu nimi weli amriga qaanuunka ah, qaanuunka weli amri ah. xaqiiqatan masaladaas inaanu ogaano alqaanuun huwa wali lamr. waxyaabaha keenay inaan ka hor imaano oo isku dhacno annagoo waxaan nimid rumaysan ilmaha anaa dhalay, anaa ka mas-uula, waxaan doonaan ku samaynaya waa ilmahaygii weye, waa jirkaygii weye, anaa ka mas-uula, anaa korinayo, anaa wado. yes waa markaa waddankeedii aad joogto da weli kama. laakiin halkaa marka aad timid waxa weeye qaanuunkaa weli amr u ah. waa system ay samaysteen weeye, maaha wax adiga keliya kugu gaar ah. dadkoo dhan waddankan cidda ku nool muxuu ahaa deganaanshaha haysato ama muxuu ahaa dhalashaha haysatee waddankan degan, waa wadamada Yurub oo idil baan ka hadlayaa, waxaa weli amr carruurta u ah marka ay caloosha hooyadood galaan, maaha markay dhashaan. markay caloosha hooyadood galaan ilaa uu qofku ilmaha uu ka qaangaarayo uu weynaanayo, yani ilaa 18 uu ka gaarayo, waxaa u ah qaanuunka u ah. muxuu qaanuunka weli amr ugu noqday marka? qaanuunka weli amr ugu noqday waxa weeye waxa uu siiyey xuquuqda ilmahaasi uu leeyahay, qaanuunkaa siiyey. bima anna xuquuqdii uu siiyey isagaa weli amri ah, isagaa zimaamkii haysta. marka qaanuunka isagaa haysto, yani qaanuunka uu marka xuquuqdu siiyey maxay tahay? wuxuu siiyey waxa la yidhahdo xaq ricaaya, daryeel. ilmahaas wuxuu xaq u leeyahay inuu guri dego, guri la siiyo, ma guri la-aan karo. wuxuu ku noolaado oo maciishadiisii uu ku helana waa la siiyaa. maaragtay child benefit iyo waxaa la bixiyaa, child tax credit iyo mushaarif waxa weeye dhaqaala lagu bixiyaa. xuquuqdaasi ilmaha uu leeyahay oo dhaqaalaha la siinayo iyo xaqa uu guriga u yeelanayo qaanuunkaa siiyey oo xaq uu leeyahay, oo dowladdu ama councilku ku khasban yahay inuu xaqaasi ilmaha in uu siiyo. xaqa labaad ee ilmaha qaanuunku uu siiyo waxa weeye waa xaqa tacliimkii,
oo waxbarashada ilmuhu waxbarasho la'aan karo yani inuu waxbarasho helo ilmihi waa xuquuqdu leeyahay weeye hatta waalidka laga yeeli mayo gurigan ku haysanaya ma wax ma baranayo waayo waalidku ma bale wilaayadaasibo qaanuunka iskale qaanuunku ugu khasbaya ilmaha inay iskuul geyso hadii kale waxa weeye laga yeeli mayo xaqa saddexaad uu leeyahay waxa weeye xaqa caafimaadka weeye yani ilmaha hadii uu xanuunsado in la daaweeyo in muxuu caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa caafimaad runtii in lagula dadaalo xaqa afraad uu leeyahay ilmaha waxa weeye waa xaqa ammaanka ilmaha inuu ammaan ku noolaado inuu peace dareemo in aan la handadayn inuusan cabsi dareemin inuusan marnaba dareemin wax ku ah isagu khatar noloshiisa iyo naftiisa ku ah inuusan dareemin intaasba qaanuunkaasi دور والدكم مركم حوي هي دور والدك وحوي وقوسان وي قوسان مطعنا قوسان هو وحوي وحولها يسمى والراعوي حولها يسمى له نبى إسكاله ولو ديبتي حولها الرعوالين هل كجي مال داقسين لجي بينا صوصي سونع علي هذا هو دور الوالد وضمضان يعني وقوساوي والراعوي المه ولو ديبي lacagtii uu ku masruufi lahaa waa la siiyey gurigii uu ilmaha ku noolaan lahaa waa la siiyey waxbarashadii ilmihii waa la siiyey caafimaadka ducaa uu xanuunsado by telephone baad emergency waxaad ku wacanaysaa waxa la yiraahdo muxuu ahaa GB-ga ku wacanaysaa laguma ogola inaad handado ilmahaasi ammaankiisa inaad khatar geliso iska dhaf inaad disho qaanuunka waxaa ku jiro حقوق المولية child abuse وحلي هذا أو يعني إن سكن لولا دعمه سأن هبونين إن لولا دعمه ويكمل هاي إن عنانته إن تقيلسه إن محوها حقرته إن هندده أنت بوحوي يسوق ليسا بندقة child abuse يسوق ليسا أو ويسوق ليسا حق أمان كإلمها إنه حقه ليه إنه أمان دريمه إن عندنا بقيل عندنا هنددين عندنا أيان محوها إن واحد سيء نفسيا جرأهانية نفس دهان بوحود مايو إن أنا مرنا بلو جيسا هذه أدو جيسا تروح قانون كي باكو قوانيو من حق ولي أمرك مركب إنك ولي أمرك إسكالها من حقي إنه قاقات وأنا داركت حوي إن عروض بدن لقات عروض محل وقاتا عروض ولي أمرك باقاتي ما قادن عد كالي قانون باقا قاضي ولذا واحد أركي سحوي المهم مركز لقى قاضي والدك أرد محكمة دو دعوة بالله محكمة دو قانون بالو كلام حاسو ما اللي عندك البوليس دعوون ميسيد سوشيال كود دعوون ميسيد كونسل كود دعوون ميسيد محكمة بدو دعوون يسادي المها لقى قاضي محكمة دو نبحو قوانين باتالو لأن قوانين بالو كلام حاي إذا واحد قاضي قانون باكا قاضي وولي أمره المها waxaad u dacwoonaysaa waxa maxkamadii qaanuunka kala saaraysay hadii marka qaanuunkii aad ka gar leedahay waa lagu soo celinayaa oo waxa lagu soo dacwooday lagu soo dacweeyay hadii ay sax ahayn marka waa lagu soo celinayaa hadii ay tahay sax tahana waxa weeye de waxa wali amrigii isaga ka qaatay oo marka hadalba ma yaal idan waxyaabaha soo idin masaa'isha muhiimka ah runtii inaan ogaano wax badan aqoonteeda aan yeelano sababtoo waxa weeye waddankan waanu nimi qawaaniinii system waddankii leeyahay maana fiirinin waxaan ku shaqaynay aqliyadii maskaxdii aanu waddanka aanu ka nimi baanu rabnaa carruurtiina aanu ku korsanno manaaficdiina aanu qaadanaanu rabnaa oo xaqii ricaayadii oo lacagtii ilmaha la siinay iyo gurigii waa ku doodnaa inay xaq u leeyihiin inaanu helaan rabnaa ilmihii waxbarasho inay noo helaan baan rabnaa hadduu caaw xanuunsado waxa emergency GB-ga oo la carreer naqaan waan waxa weeye intaba xuquuqdaas waan u oradnaa laakiin waxa ku hoos qarsoon waxa weeye in aad ogaato intaasiba xuquuqdaasi waxa qaanuun baa siiyay ilmahan qaanuunkaasi macnaheedu waxa weeye isaga ilaashanayo oo wali amru u ha ku xadgudbin marka ilmahaasi lagu dhiibtay inta lagu siiyay waayo waxa ay ahayd hadii aad adigu wali amri tahay وذي المهد مسؤول توصل تهاي أنت صعوبك وليه هذا وسميسه هكذا البنين يجي حاولنا هذا وسميسه ما سمين كرتامي واي سيستم وطن كماها
systemka waddanka waxa weeye ilmaha intaas uu xuquuq u leeyahay mana diidi kartid waanaad ku socoto hadihi waxa weeye runtii in aan masaladaasi ogaano aad bay muhiim u tahay waalid kastana inuu runtii uu ku baraarugsanaado masalada ugu dambayso oo aan rabo inaan ka wada hadalno waxa weeye waxaan kasoo tegay saddexdii masalo taa waa midda labaad runtii waddankan weliba markay ilmaha teenage yihiin ama ay dhalinyarada yihiin waxaa aada u badan waxa weeye xaqiiqatan inaan aada ugu baraarugsanaano waana dhibaatada ugu weyn ay jirto waxa la yidhaahdo inxiraafaadka fikriga ah ama marin habowga fikradeed oo qodobadii aanu soo sheegnay marka ay dugsiga sare joogaan runtii waxyaabaha lagu ababiya ay tahay inuu xor yahay fikirkiisu xor yahay wuxuu rabana uu aamini karo diimahana inay diimo isku wada mid yihiin siduu isagu rabane uu wax u qaadan karo runtii waxyaabaha lagu soo baray ay tahay waxa ay keentaa waxa weeye marin habow fikradeed inuu ilmuhu ku dhaco iyo mid akhlaaqeedba inuu ku dhaco iyadana waxyaabaha aada u fara badan waddankan ka jirto tan saddexaad oo runtii iyana ka jirta waxa weeye huwiyadii ama identitygii ilmaha oo inta badan khalkhal galaa waayo markii iskuulkiina qaab wax loogu dhigo gurigiina qaab kale wax loogu dhigo waxa ay keentaa waxa weeye in ilmahaasi identityga uu runtii khalal ka galo amaba identitygiisii uu waayo identityga aanu ka hadlaynana waxa weye waa laba ugu muhiimsan waa identityga islaamka inuu muslim yahay iyo identityga inuu soomaali yahay oo ethnic backgroundkiisii halka uu ka yimid ama uu kasoo jeedo uu yahay labadana waxaanu arkaynaa waxa weeye afkaar ama muxuu ahaa waxyaabo khalal gelinayo in systemka waxbarashada runtii uu ku jiro taasoo keenaysana waxa weeye haddii aan laysku baalaansi garayn oo ilmihii guriga iyo masaajidda iyo dugsiyada ay dhigtaan aanan la xoojinin huwiyadoodii islaamnimo iyo tii soomaalinimo haddaan la xoojinin waxay keenaysaa waxa weeye inay shiiqayso mar walba uu soo weynaadane oo afkaar kale uu xambaarsanaadana waxay keenaysaa waxa weeye in ay shiiqdo ugu dambeyntiina inuu markaa garan waayo isagu halka ay hawiyadiisii ay tahay qodobka u dambeeya aan runtii kusoo ururinaya waxa ay tahay asbaabta keentaa in waalidka iyo ilmihiisa isfahmi waayaan yacni maxaa keeno waxaanu arkaynaa waxa weeye in weliba marka ay dhalinyaro yihiin oo teenage soo gaaraan inay runtii waxyaabo fara badan dhibaatooyinka ugu weyn ama sheegashada ugu badan waalidka waxay ka timaadaa waxa weeye dee anigii carruurta waa isfahmi la-aannahay waan is-afgaran la-aannahay xaggay salka ku haysaa isfaham la-aantaas ilmihii adaa dhalay maalinta caloosha hooyadii galay markuu dhashay intuu soo korayey habeen walba waxa weeye waa kaasoo akacaya oo kula joogay subax walbana waa kaxaynaysay waxaad geynaysay iskuulkii galabtana waa kasoo celinaysay habeenkana guriga adigu aad ku nooshahay buu kula jiiftaa nin ama qof kaa maqan oo muddo badan kaa maqnaana maaha isagii ma aha adna ma tihin waxaa keena inay isfahmi weydaan marka runtii waxaanu soo qaadanaynaa dhowr qodob waxyaabaha keeni waayey in siibo dhalinyarada gabdha iyo wiilalbu iyo waalidkii hooye iyo aababo in isfahamkoodu aada u yaraado waxa ugu horeeya waxa weeye waalidkii oo aan waaqaca uu ku nool yahay runtii aanan fahamsanayn waaqacan ama bii-ada ilmaha uu ku nool yahay bii-adan aan anagu ku nool nahay aanan wax badan aanan ka fahamsanayn qodobada aanu soo tilmaamaynayna ay ka mid tahay oo ah war ilmahan 6 saacadood 7 saacadood buu kaa maqan yahay macallin professional oo well trained ah baa wax u dhigo system runtii waxa weeye adag oo dejisan uu wax ku bartaa muxuu ahaa school ama institutionno facilities fara badan haysto ayuu tagaa oo wax kusoo bartaa oo ilmihii niyadda u dhisayo ilmihii waxyaabo badan oo jecel yahay u samaynayo haddii aadan marka adiga dhinacii kale guriga marka uu yimaado intii isagu loo sameeyey ama facilitieski uu haystay ama tayadii iskuulka uu lahaa ama trainingka macallinka uu haystay mid u dhigma haddaadan adiga haynin waxa weeye waxa abuurmayo in lagaa xoog bato adiga
وقرن كرنا وحوي الماء وحلي هذا إن أفرق قوادود با سفير صعبة ما اسمه فير صعبة أنا أفرق قوادود بجيدا الماء أفرق قوادود من دول سامين تيدا لا هاي والماء وحوي وأي سامي سام ومن دول سكولك إن حافظ أما ديجان كودكين هاي إن environment تيجا محن لها محوها ميدياها يقولي أفرتا قيبات بوحوية وأفر فاكتور المها سامين كله يعني قولي والد كأرنتي سامين بقولي هاي ووالد كناليوية وأنا قولي كنولي هاي الشكول هو حكبرتو السيستم هو حكبرتو يسون سامين بقولي المها وسامية حافظة أما ديجان كأما مجالة ودقين هاي environment تيجا دسيلوي هاي أنا سامين بقولي هاي المها ميديا سوشيال ميديا كان أما موبايل هالنقطة أما إنترنت هالنقطة أما تي في هالنقطة يعني وحوي أطبق المها مركو يري يعني كرتون بوداوضة وميديا وهي سامين بقولي هاي مركو دقن حسو قارن وحوي إنترنت يو كمبيوتر بقو مشغولة ده هذا أنا وحبوش كيسي قال وحوي سوشيال ميديا وموبايل هذا أي أسواق عليه أنت ويجون سامين بيليه أفرتها شيء وذود ومد والباء وحي وضعتها مسج مد والباء وحي وضعتها قيم مد والباء وحي أي وضعتها وحوي فكر أي ربط المهن إن يجلسوا المهي وكبر بارو هدية المركز يسبر شو ماله جيد إنه يسكولك إيو ميدياها وضن كان إيو environment إذا ما ديجان كحفظوا الدقيقة هاي هذا يشو اتجاهي هنا وشو ماله السعودان والد تكون كدوية هاي برسنتج ما قد كتاعدوا مرة 25% 75% وحي كدوية هين قيمك إيو value بأضربتين هذه المها قاعدة برضو وحنا نهين ببرية إذن يعني واقع أكجرت أديك والدهن إن المركة أكسوناتو إن وياه واقع أذن 75% أذن المهن كلهين سامين كلهين أو ذكر لي سامين كلهين ولقى دوني مركا أديك سيدي أدوغا أتكان لهي أما أدوغا حوق بدين لهي 75% كاس يعني وحن كهر لي ووالد كبراروكسن ددالي كان براروكسنين وأن ددالي نينو حوية اللهم حريستو وكاوا قرن كرا مركا والدك أو واقع وكجرا أنا فهم سنين رنتي وحي كنتا إن سجى المهيسين يسفهم وياه صوته إنت وحوي والدك نوادي بوجوجا المه نوادي كله أي جوجان وأنا أذكرت لبدا وادي أما لبدا توك وادي لبدي ستوك أي كله جوجان إن إيميل كوما قضب كلابات وحوي والدك أو رنتي فهم سنين هبك بربارين تصحى المه الله برباريو المه رنتي ومادة علم بربارين تلي هذا علم لبرتا horta inaan ogaano ma aha wax fitri ah oo imanaya adiga markii aad guursato oo aad ilmo yeelato in ay muxuu ahaa isla markiiba aad noqonayso waalid murabbi ah ilmaha si sax ah u tarbiyeynay tarbiyadu waa xirfad la barto waa cilmi la barto ilmaha sida loola khitaabo ilmaha sida loola tacaamulo ilmaha sida aqligooda loo taasiiriyo ilmaha sida nafsiyadooda loo saameeyo ilmaha sida xuduud loogu sameeyo xuduudaasina lagu ilzaamiyo intaba waxa weeye waa funuun iyo culuum la barto weeye xaqiiqatan oo baahan waayo waxaan ka garan karnaa waxa weeye macallimiinta iskuulka u dhiga ilmaha macallimiintu waa la train gareeya macallimku maaha inuu u dhigo keliya maadadan cilmiga inuu maadka u dhigo 1+1=2 weeye haddii kan aad samayso kan kana ku imanayo keliya maaha waxa la barayaa waxa ilmahan sidii uu u korin lahaa maskaxdooda ilmahan sidii uu qiyamka iyo value-ga manhajkan uu xambaarsan yahay uu gelin lahaa ilmahan sidii uu uga soo saari lahaa ilmo isaga wax istaro oo hadhowna waxa weeye wixii la baray ku shaqaysto dadkana la tacaamulo waxyaabahaas oo idil macallinka oo lagu soo train gareynaya taasoo macnaheedu waxa weeye macallin aanan tababarnayn oo aanan cilmiga education-ka iyo cilmiga muxuu ahaa psychology-ga ilmaha sida muxuu ahaa loola dhaqma macallinaana la soo barin marnaba ilmo lama horgeynayo dhinaca kale waxa awlaa ah oo ka mudan waalidka sababto isagaa ah
hoygii asaasiga ahaa ee ilmaha inuu barbaariyo laga rabay, ilmaha inuu barbaariyo laga rabay. marka maaha inaad sidii fitradaadii inaad u noolaato aad tiraa waalid baa nahay, yes waalid baa taa waan u naxariisanaysaa ilmahaaga, waad jeceshahay ilmahaaga inuu horumaro. waxa way xusnu dhanni wax la yiraahdo wax ma tarbiyeyso. annagana ka waalid ahaan waxaanu ku soconaa xusnu dhanni inaan u niyad fiican nahay, oo u niyad wanaagsan ilmaheena inuu fiicnaado oo u dadaalinaa. laakiin wasaa'ishii aan u adeegsan lahayn oo waliba environmentiga hadda aan halkan ku jiro ilmaha in ay muxuu ahaa mu'assasaad kale ama hay-ada kale ay challenge kugula jiraan oo iyaguna saameyntooda leh. waxa way haddii aadan marka yeelan awood aqooneed iyo awood tababareed oo aadan u tababarnayn ilmaha waddankan ku koray ama waddankan ku dhashay ee mu'assasaadka tacliimiga aadayo sidii aad u barbaarin lahayd, sidaad caqligooda u korin lahayd, haddii aadan aqoonteeda yeelan runtii waxa weeye hadafkii aad lahayd ama ujeedadii aad lahayd marnabo ma gaaraysid. idan waxyaabaha isfaham darrida keena waxaa ka mid a waalidkii oo aanan aqoon u lahayn habka barbaarinta saxaha ilma halkan joogo sidii loo barbaarin lahaa. waayo su-aal baa la isweydiiyaa oo ah annaga ilmaha ma barbaarin ama soo korinaa ya maxay tahay marka farqiga u dhexeeya barbaarinta korriinka muxuu yahay? يعني وكرنا وي يعني cunada waa siisaa, waa hoygii iyo hugii iyo hungurigii, waa saddexdaasina markaanu fiirno wali amrigii qaanuunka ah saddexda isagaa siiyo, adigu ma siisid. kaliya u nidaamisa bis lacagta lagugu dhiibaa, way hoygii isagaa siiyo, hungurigiina isagaa siiyo, hugii uu labisan lahaana isagaa siiyo, waa lagugu dhiiba qowsaar baa tahay. idan marka dowrkaagii ahaa xataa korriinkii ma korino, waa laynoo dhiibay. idan marka qaanuunku wuxuu inoo saamaxayaa inaan barbaarino oon cidana nagu haysan, inaan qiyamkayagii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo muctaqadaadkeennii inaan barro oo aanu ku barbaarino. qaanuunka noo diidi mayo, xor baan u nahay inaanu barro. dowrkaasina waxa aad ku qaadan kartaa waxa weeye xaqiiqatan in la bartaa cilmiga barbaarinta. waana cilmi muhim ah weeye, waan aniga ahaan u arkaba inuu waajib yahay oo fardu cayn waalid walba uu ku yahay in ilmihiisa sida uu halkan ugu barbaarin lahaa inuu barto cilmiga uu doonto. buugaag akhriyaya, rag khubaraa u doonayaya, muxaadaraad dhegaysanaya, adigu meeshuu doonaba ha u doortee. war ilmahan sidee walba loogu barbaarin karaa marka ay yar yihiin oo ay dhashaan ilaa 2 jir qaab baa loo barbaariyaa, 2 jir ilaa 7 jir qaab baa loo barbaariyaa, 7 jir ilaa 11 jir qaab baa loo barbaariyaa, 11 ilaa 14, 15 ilaa 18, shanta marxaladood. marxalad walba waxa ay leedahay dabeecad gooni ah bay leedahay, dabeecad kastana waxa ay leedahay baahi gaar ah bay leedahay, baahi gaar kastana qaabkii loo dabooli lahaa bay leedahay. aqoonteedii in la doonto, haddaadan doonan beri ilaahay subxaana watacaala uu ku weydiin doonaa. jahli marnabo cudurdaar ma noqonayo. haddii tarbiyadaadu jahli ay ku inxiraafto adoo helayo inaad aqoonteedii yeelato, ilaahay subxaana watacaala agtiisa cudurdaar ku yeelan mayno. xaqiiqatan waana dhibaatada ugu weyn ay jirto. sidee ku keentay in adigoo waalid mas-uul ah amaama allaahi ah inuu qaanuunkaa qaato ilmahaaga? yani khafalada noocaasi ah maxay ku timi? markaad imanaysaysa waddankan aad carruurta keenaysa maadan ogeyn miya? qaacida waxaa jirta la yidhahda alqaanuun laa yaxmil mughafaliin. القانون لا يحمل المغفلين. قانون وقف مغفل وحب ورموق قانون ما إلهي خلت كذا كل عضوات كل عضي تاني وحوي رنتي والنقطة لبعض نقطة سد حد وحوي أبيه هو إذا إسكو مشغول سن حقيقة المسألة ذا سد بلوجة هذلي إسكو مشغول كأبيه هو إذا إسكو مشغولين وحوي وحكله مي عروتي بكل متي
ama ha isku qabsadaanin sidii ay ilmaha u korin lahaayeen oo qofba aragti ha ka yeesho ama dhaqaalaha la isku qabsado ama ha la isku qabsado muxuu ahaa masaa'il kale iyo waxyaabo kale ha la isku qabsado isqabsiga waalidka waxa ay keento runtii in ilmihii dhexda ka baxaan nuqdada afraad waxa weeye iyadoo aan xiwaar jirin wada hadal waalidkii iyo ilmihii oo waalidku habdhaqanka tarbiyadeed ee ilmuhu kula dhaqmayo ay keentay inuusan aqoon u lahayn asaaliibta tarbawiga ee saxa uusan aqoon u lahayn waxa ay keentay waxa weeye inaan ilmihii annagu dictate garayno aan khasabno qaabka xataa aan ugu khasbaynana ay tahay qaab canaan iyo eedayn iyo wax ka sheegid inaan ugu soconno yani khalad yar haddii uu galo waxa weeye loo cudur daari mayo madaafiic qayla iyo eedayn iyo wax ka sheegid baanu ilmihii dhagaha kaga raacaynaa tiina waxay keenaysaa waxa weeye ilmihii inuu mar walba dareemo in uusan xiriir fiican aabihii kalsooni ku qabin aabihii inuusan jeclayn aabihii in uu u arkayabo insaan khalad badan inuu u arkayo yani inay masaa-ishaas oo dhan inay runtii ay timaado xiriirka iyaguna inuu noqdo mar walba awaamir inaan amar siinayno sidaa yeel saa yeelin saa yeel saa yeelin xiriirka naga dhexeeya waa intaas wax kaloo naga dhexeeya male laakiin dad wada sheekaysanaya oo afkaar isdhaafsanaya oo mararka qaarkood ilmihii laga talagelinayo arrimaha gurigooda sidan maxaanu yeellaa maanta maxaanu samaynaa iyo taladiisii la qaadanayo loogu madaxweyneynayo in taladiisa la qaato la tuso inuu yahay xubin ka mida familiga ka mida oo wax ku leh go-aanka wax ku leh guriga markii qadaayaadka qaarkood laga hadlayo intaba anagu waxa weeye buug nooguma qoro oo kalama hadallo ay noo sii dheer tahay waxa weeye citaabkii iyo eedayntii iyo ay noo sii dheer tahay ugu dambayntiina waxa weeye waxaa aada u luusan iqadii kalsoonida waalidka iyo ilmihiisa gaar ahaan marka ay teenage-ka yihiin iqadaasina waxyaabaha runtii hoos u dhigaa waxaa ka mid a waxa weeye dabagalka waalidka oo aada u badan yes ilmaha inuu waalidku dabagalo wey laakiin qaabka u dabagallaa wuxuu yahay qaab runtii qaab jaasuusnimo ah oon saa u dabagelayno laakiin qaab waxa weeye caqli ah ina aad isagii inuu kuu sheego waxa bannaanka ka soo dhacay wixii uu soo sameeyey inuu isagu kuu sheego laakiin waxa weeye maadaama aan xiwaarba naga dhexay wada hadal buu naga dhexayn wada hadalka iyaguna awaamir iyo citaab keliya ay tahay ayaa waxay keenaysaa waxa weye dabagalka iyagu inuu noqdo inaanu qodqodno aanu raadino taana waxay keentaa waxa weeye inay iqadii lunto inuusan waxba isagii markaa kuu sheegan waxa la mida waxa weeye waxyaabaha runtii iqa darida badanaa abuuro waxa weeye waa qaab dhaqanka annaga aan marnaba aanan dhegaysanaynin ilmihii taladoodii ama sida ay wax u arkaan inaanan dhegaysanaynin inahaasi ayaan jeclaa inaan idinla wadaago xaqiiqatan waana mawduuc aada u ballaaran oo runtii u baahan in workshops laga qabto ma aha muxaadaro iyo kelmad iyo laba kelmadood waxaan arkaya waxa weeye hadda dhowr waalidoo dadaalaya runtii ay hor fadhiyo laakiin waxaan aada u dareemi lahaa waxa weeye waalidiinta xaafadda oo dhan inay wada joogaaniin oo mawduucan runtii uu noqdo mawduuc saaca inuu noqdo waana mawduuca ugu muhiimsan ee aan u baahannahay ilmaha iyagu waxay u baahan yihiin barnaamij tacliimi oo u dhigmaa barnaamijka tacliimiga iskuullada lagu dhigo welida runtii muasasad rayaan muasasa la yiraahdo oo muddo hadda 2 sanadooda ee dhisan muasasadaasi waxaa ku bahoobay ilaa 11 markas ku dhawaad iyo muasasada irshaad la yiraahdo muddana waxaa laga fakarayay in manhaj tacliimi ah oo waxbarashadeed oo islamic studieski ah luqadii carabiga ahayd oo muhim ilmaha u ah runtii iyo luqadii afka soomaaliga ahaa in dugsiyada lagu dhigo luqadii afka soomaaliga ahaa runtii waxyaabaha keenay xiriir xumida maanan ka hadline keenay waxaa ka mid a waxa weeye caamilka luqadii baa maqan oo ilmaha waalidkeena iyo ilmahaba waxaad moodaa isfaham darrida waxa keenay waxa weeye ilmihiina afka soomaaliga aqoonin waalidkoona ingiliishka aqoonin marka ilmihii 4 kelmadood yaqaano Soomaaliya iyo waalidka 4 kelmadood English yaqaan 8 kelmadood lagu wada hadlaa 8 kelmadood baa lagu wada hadlaa ilmihiina afji jaban ku hadlaya waalidkiina yani luqad gaarsiisan mustawa fikri ah in la doodo oo fikrad ahaan loo doodo oo aqli ahaan loo doodo waa luqad sare oo luqadaasi ilmihii af Soomaaliga ma yaqaanaan waalidkiina
luqad heerkaasi gaarsiisan oo English ma yaqaan saa darteed muasasadu waxyaabaha ay aad ugu fikirto waxa kamid ah waxa weeye luqadii Soomaaliga ahaa in ilmaha iyagoo yar lala bilaabo dugsi Qur'aankii loo dhigo ilaa muxuu ahaa dhowr iyo toban jir uu ka gaarayo in afkii Soomaaliga ah loo dhigo iyo Islamic studies oo runtii u dhigmayo manhajka waxbarashada iskuulada ay kusoo dhigtaan u dhigmayo barnaamijkaasina runtii waa bilowday waana la daabacay buugaagtiisii qaarkood oo hadda masaajidda iskuul dugsiyada waa laga dhigaa qaarkood qaybihii kalena waa socdaaneen oo hadda marxaladii koowaad waa bilowday oo waa la soo daabacay hadda waxaa qoraalkeedii socda marxaladii labaad oo ah da'da 8 jir ilaa 9 jir ilaa 12 jir ayaa hadda socdo kii 6 jir ilaa 8 jir waxa weeye waa la soo daabacay oo maraakiista qaarkood waa la dhigaa runtii manhajkaasi waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka taro xagga fikirka iyo qiyamka ilmaha ugu baahan yahay in la baro inta ay yar yihiin intaasaan kusoo ururinaya wixii su-aalahan waa furan yihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وفرندا سؤال ها ساينس iyo literature qaybta English iyo ari falsafooyinkooda iyo weligan aan imaanayn kasoo galaan loogu dhaafay ilmihii maadaama waxay part of the curriculum sidee waalidka roolku ka ciyaari karaa in yani waa meelaha u daran teenage markii noqdaan laga soo galo roolka as waalid ahaan intuu ka ciyaari karaa inuu kala khitaabo ama arrintan angalkii yani maadaama annaga ka imaanayn angal diimeed diinteyni ay khatar nagu tahay arrintan sidee isleedahay waa waalidku u approach garan karaa ilmihii runtii horta qodobka u hore horta waa muhim horta waalidku inuu fahmo maxaa loo soo dhigaa horta halkaas waa meesha noqdada hadda caawa ka hadlaynay inaan bal horta ogaano waalidka iskuulka waxa ilmaha maadada hadda RE oo kale iyo science-ka waa labada maado oo runtii fikradahan ay salka ku hayaan marka aad ogaato markaa imanayso in aad adiga ilmahaaga in aad ka wada hadashaan waxyaabaha ugu muhiimsanna waxa weeye ilmihii inuu ogaado inuu yahay ilmo diin leh oo muslima مثلا hadda yani RE-ga maadadan waxa diimo badan lagu dhigaa taqriiban hadii aanan badinin يعني بقول كيف سجاشن بان أورانكرا معلمين تا مادة RE اللي هو atheism وين إن لو قلت هلا قالنا وصورة قال ما قرنا يوم لكن وحيابها السوق هذا هو معلمين تا مادة سلك تا إن إيهين معلمين يجوا رومي سنين فكر كمركو وجود بيني يوم معلم كان المها وحوي إن ديمها من حوي من باب علمها نسكو جو أنت سو ديما جرو ديمها ني وحوي يعني دين كفي عنا مجرته إن وحبا معلمين تقاركود وحبا لقيا بيني كبير هذا محوية وديمه هو حقوي حرحرية كان هيل كان هيل سو كان مرة نتكحروا ذبو وحرنا إسكديسو مركا إن المهي هذيك كبر بارسو تستطيع هذيك أن المسلم باتهاي دين له دين تانو نوع عسوي دين تقدم بس إلهي وسودجي إن الإسلام كبرت المها يسوى هايستو دين تيسي كوا كلانه إسكوجو إن إجران مركا المهي وحو هايستا وحو يسجد دفاعه لكن مركا أذن جورجينا كلا هرلين المهي إسلام كيسينا إنه دين تيسي رسمي هاي identity كيسي إنه يهاي أذن نسوا شيئين markuu macallin noocaas oo train graysan uu la kulmo waa laga shaki gelin karaa marka qodobka ugu horeeya horta inuu waalidku horta ogaado waxa la soo dhigo
maadada yani muxuu ahaa science-ka oo kale iyo theory-yada hadda science-ka oo kale iyo nadariyaadka tatawurka iyo nadariyaadkan maadiga ah ee materialism-ka koonkan waxa weeye waa dabiici waxyaabahaas oo idil يعني adiga inaad ilmihii ilaahay subxaanahu wa tacaala aada soo barto aayadihii ka hadlayay ilaahay inuu koonkan isagu abuuray koonkan inuusan sudfo ahayn adduunkan inuusan iska imaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala jiro inuu yahay alla abuuray suuradihii ama aayadihii tilmaamayay qofka wuxuu ilmihii wuxuu haystaa isagoo og in ilaahay jiro koonkan iskama iman adiladii amhiladiina calaa xasab inta uu fahmayo in aad siiso horta taa way tan un keliya yani runtii waxa weeye masaajidii ama madaaristiina waa wax hadda manhajkan la dejiyey oo islamic studieska gaar ahaan uu salka ku hayaabo waayo marka la dejinayay manhajkan islamic studieska waxaa lasoo akhriyay manaahijtoodii baa lasoo akhriyay marka yani waxa weeye inaad taa aad la socoto waa muhim intaasaan oran lahaa runtii arrintaasi mushkiladu anagu soomaalidu waxay tiraahaa fidnada ama dhibaatadu fidnadu maogtahay madax la qabtay leedahay daba la qabtaa male masaladu marka hore intuu yar yahay weeye intuu yar yahay baa waxaan luminay xiriirka annaga isaga naga dhaxeeyo yani waa korinaa ilaa waxbaan siinaa laakiin ilmihii maanan kasban inuu adiga kuu arko ramzi wax walba oo la soo noqonayo fiqo iyo kalsooni aada siiso albaabkaaga u furan yahay adan ku qaylin canaanan awaamirta badan waxaa la yidhaha nadariya tarbawi ah waxay jirto la yidhaha daqiiqa nadariya daqiiqa la yidhaahda waxu sheegidaada daqiiqada inay noqoto canaantaada daqiiqada inay noqoto amarkaaga daqiiqada inuu noqdo adan la jardhoor adan jeedin ilmaa markuu khalad yar soo galo aada waxu sheegayso kasta ilmaha hadal badan ma xamilo annagana waxaan noqonaa waxa weeye khalad yar buu galaya ama arrin baad rabtaa inaad u sheegto waxaa laga yaabaa inaad 20 daqiiqa akhrina sheekaynaysa ilmaha wuxuu kula soconayaa 2 daqiiqo u horeyso waxaan ka dambay tarin oo ka dhacsan yahay adunbaa hadlayo xaqiiqatan adunbaa hadlayo saa darteed nadariya waxaa la yidhahdaa nadariya daqiiqa kulliga daqiiqada ka badin oo sheegidaada way tensionka ilmuhu wuxuu kuu soo jeedaa daqiiqada u horeeya aabbo haye oo ku dhagaysanaya message-kaaga gaarsii bas khalaas uga bax ilmaha marka aad kusoo barbaartaan adiga iyo ilmahaagaba markii uu yaraa 3 jir ilaa 2 jir hooyadiisa hayso oo intuu naaska nuugayo 3 jir buu kuusoo madax banaanaanaya 3 jir oga bilow inaad waana tan la yidhaahdo adibhu sabca muxuu ahaa nadariyadii ahayd muxuu ahaa laacibhu sabcan adibhu sabcan wa saaxibhu sabcan laacibhu sabcan baa naga maqan 7 u horeyso ilaa 7 jir inaan la ciyaaro oo cid kale uusan aqoon adiga kaliya ku yaqaan adiga inaad wado meelaha qaarkood geyso kalsooni aad abuurto inaad isku soo xirto inuu jeclaysto markuu iskuulka ka yimaado wixii uu soo arkay inuu kaaga sheekeeyo adiguna marka aad shaqada ka timid ama bas ka soo deg ama taxi ka soo deg ama meel kale ka imow wixii aad la kulantay inaad uga sheekayso oo sheeko idan dhex marto laakiin haddii ay sheekada iyadu tahay amar haddii ay tahay waxaa la yidhaahdaa ilmahaaga inuu ku jecel yahay maxaa lagu ogaadaa adoo ilmahaaga inuu ku jecel yahay maxaa ku ogaadaa ya waa ka mid 3 shay baa lagu ogaadaa ilmaha inuu ku jecel yahay markaad maqan tahay inuu ku doono aabbo gormu imanaya su-aashiisii ku badato marka aad soo gasho furaha shanqartaada maqlo inuu kuu soo ordo xataa kartoon fiican hadduu daawanayo inuu kuu soo ordo marka aad timaado soo fariisatani inuu jecel yahay inuu kusoo ag fariisto
saddexdaas shay calaamad haddaad aragto ilmaha waa ku jecel yahay cagsigooda haddaad aragto xisaabtaada dib ugu noqo ilmo marka kusoo koray cagsigaasi teenage markuu noqdo xiriirkeedan ka dhaxaynaya muxuu yahay marka ma jiro waa weyn oo ka tagay saaxiib uu samaysa wuxuu helayaa saddexdaasi mid uu ka samaysto buu helayaa idan marka xiriir xumida teenage-ka iyo waalidka ka dhaxeeya waxaad markaa bilowday ma aha 3 jir bay soo bilaabatay markuu 3 jir ahaa ilmuhu way ku soo bilowdeen in ilmahaaga uu ka lumo uusan xiriir fiican idinka dhaxayn waa ku koray yani inuu aabbo ku arko routiinka caadiga ee guriga inuu yimaado inaad waraysato parent evening ka qayb gasho hadduu calaamado fiican keenana aad tiri maasha Allah wiil fiican aad tahay hadduu calaamado hooseeya keenana aad anaan la dhacdo bas intaas kaliya laakiin wax kaloo idinka dhaxeeya shukran baa wax kaloo idinka dhaxeeya ma jiro marka in cilaaqada waalidka iyo muxuu ahaa ilmaha in dib loogu noqdo mas'alada marka teenage-ka markay soo gaartay waa feer qalloocatay weeye xaqiiqatan marka in feerta qalloocatay inaad adigii farsamo kale aad ku farsamayso mooye xiriirka adiga iyo ilmaha idinka dhaxeeyo waxaan ugu weyn waxa weeye horta thiqadii inaad soo celiso thiqadana waxay ku soo celin kartaa in aad tixgelin badan in la siiyo akhtaada qaarkood waxaan tagaafulka la yiraahdo yani ismoodsiiska annagu akhtaada waaweyn ilmaha kuma canaanana akhtaa yar yaro oo aan macno lahayn xalaga 20 daqiiqo nus saac soo daahay timeka gurigu ka imanayay ka indhalaabo mideeda kalena waxaa la yiraahdaa ilmaha markuu khaladka galo laxdadaas uu khaladka soo galay lamana canaanto waxna looma sheego laanno laxdadaasi wuxuu diyaar u yahay inuu isdifaaco laba xaalad mid baa imanayso inuu isku difaaco inuu hadalkaaga hadal ku celiyo markaad canaanto isaguna hadal kulul ku yiraahdo uu qayliyo qaylo lagu darana waxa weeye wax fiican ka dhalanayo iyo inuu madaxa rogto uu ku dhageysto qayladaada macnaheedu marka albaabku ka xirto iska hadal marka hadalka dhamayso oo ka tagaya labada xaaladood baa dhacayso laakiin haddii isagoo diyaar u ah ama inuu isdifaaco ama inuu madaxa rogto hadaad ka aamusto isweydiinaya ilmihi aabbo muxuu kaaga aamusay maxaa dhacay markay naftu degto oo habeenkii la gaaro ama maalinta labaad inaad tiraaho shalay waxaas samaysay aabbo ma fiicna mar dambe ha u noqonin horta laba arrin baa midna wuxuu ku siinayaa tixgelin xoog leh oo aabbiina in yani aad markii uu khaladka galay inaadan canaanan midda labaadna waxa weeye nafsiyadiisu waa degan tahay markaas oo yani difaac iyo dagaal kuma jiro waa ku dhagaysanaya marka yani in hortii aanu barano shukran inaan barano xaaladaha isbedelka ilmaha iyo goorta la saxayo iyo goorta muxuu ahaa ay habboon tahay in ilmihii wax loo sheego xaaladahaas oo idil midda labaadna waxa weeye masalada xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ahaa yani icmaluu muxuu ahaa bashiruu yassiruu walaa tucassiruu bashiruu walaa tunafiruu waidaa ghadiba axadukum muxuu ahaa falyaskut يعني حديث كاسكنتي وقاعدة تربوي ومهمة يعني يسروا ولا تعسروا هنا المها نولش أبو فضوديس عنان تكفضوديسو تكاليف تقاركود إن تكفضوديسو أخطاء ضوء قاركود إن أخطاء ير كأ إن كأن الله وتسيأت كوا وين وصحضه إن بشروا ولا تنفروا mar walba dhinaca wanaagsan inaad aadan didin canaanta iyo qaylada iyo dagaalka iyo
ilmaha waa dirisaa waidaa qadiba axadukum falyaskun runtii waa qaacida wey walidaa waxyaabaha qaadiga loo diiday xaalad ka mid a xaaladaha qaadiga inuu wax xukumo markuu xanaaqsan yahay qaadiga sheekh qaadiga markuu xanaaqsan yahay ma loo ogolyahay inuu wax xukumo iyo markuu gaajaysan yahay markuu aada u faraxsan yahay iyo lana xaala nafsiya maskaxdiisa caqliga ma shaqaynayo caadifada xoog badan markaas xukumkana looma ogola caadifad xukumka caqliga waa wax xukuma caadifada waxma xukunto caadifada waa extreme wey yahay intay tegaysa caadifada walidaa xaaladda qadabka ilmahaaga markuu khalad galo waad xanaaqsan tahay markaad xanaaqsan tahayna haddaad hadasho waxa weeye waa masalo adag weeye runtii waxaa laga yaaba habaar inaad gaarsiiso iska dhaaf waxaan kuu sheega masalo kale marka arrimahaas oo idin runtii horta waxay u baahan yihiin koorsooyin loo qaato xaqiiqatan naga waxyaabaha naga maqan ay ka mid tahay waxa weeye adduunka hadda wuxuu gaaray in wadamada qaarkood hadda waxay gaareenbu markay dadku isguursanayaanbu inay seminaaray koorsooyin qaataan gurigan aad dhisayso sidee gurigan aad ku dhisayso yani anagu markaan guursanya kor soo qaato markuu guursanaya ma jiro maba naqaanba meel wax nooguma jirto xuquuqdii waajibaadka la isku leeyahay caruurtaas imanayso yani hadda waxyaabaha keena isku dhaca badan ee waalidka yani ninka iyo xaaskiisa maxaa keena isku dhaca سيسون فهم سنين وحكى حي نولش سيسون فهم سنين